بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Edna Aadan Ismaaciil waxaan ahay muwaadin Somaliland ah. Waxa maanta farxad weyn ah inaan magaalada Hargeysa aan codkayga ka dhiibo oo aan saf aad u dheer aan saaka soo galo. Waxaan u maleynayaa inaan kamid ahaa boqolkii ugu horeeyay ee codkooda ka bixiya goobtii stadiumka ee aan ka soo codeeyay. sidaa aad u soo baxdeen haddii aad tihiin muwaadiniinta Somaliland waa dowladdu sida u yaalla weeyaan. waxay tusaysaa adduunka in aynu Somaliland ay ka suura gasho wax dalal badan oo Afrika ka suura gali waayay. wax ka suura gali waayay dalkan aynu jaarka nahay ee Soomaaliya, dalkii Talyaanigu uu gumaysan jiray markii hore. waxay tusaysaa dal badan oo kharash badan la geliyay oo ciidamo badan la geeyay oo si walba gacan looga siiyay inay inta iyo in u dhow ay sameyn kari waayeen. waxa maanta loo codeynaya ma aha xisbiyo, ma aha shakhsiyaad. waxa maanta loo codeynaya Somaliland, jiritaanka Somaliland, inay Somaliland tahay dal xor ah oo jira oo kamid ah caalamka adduunka. waxa kaliya iska bedelay doorashooyinkii hore wax weeyaan labada kaadh. laakiin niyadda muwaadiniintu waa halkeedii oo ay ka sii fiican tahay. waxa kaliya isbedelay waxa weeyaan doorashado in yar naga yara raagtay oo abaarihii awgeed naga raagtay. laakiin niyadda iyo dal jacaylka iyo shucuurta dadka Somaliland wax u sii kordha mooyee waxba kama dhicin. waxaan maanta lagu faano ayaa maanta Somaliland ka dhacaya. waxaan doonayaa sidaa quruxda badan ee aynu ugu soo baxnay in ummaduna hadhowto marka tiradu soo baxdo qofka hela loo hambaliyeeyo iyadoon si wanaagsan oo qurux badan oo sharaf leh qofka helana loogu hambaliyeeyo, kuwa waayana ay ugu hambaliyeeyaan oo ay u qaataan. waxa weeyaan waxa kaliya ee inagu habboon waxa weeyaan nidaamkaas. shicibka hawshiisa waa taa, shicibka hawshiisa imikana wuu ka soo baxay, horena wuu ka soo bixi jiray, imikana in mar kale ay ka soo baxaan baan doonayaa. I'd like to say a few words in English, and I'd like to speak to the international community. Somaliland today, on the 13th of November 2017, is lining up for yet one more presidential elections. The Republic of Somaliland is known for its democratic elections. This is not the first time that the people of Somaliland have landed up in the sun, in the cold, to cast their vote. This is a biometric vote. I can only vote if I have this card and if my iris and my biometrics confirm that I am the person I'm claiming to be. I cannot vote twice. I cannot vote for somebody else. I will only vote for the person that I am, Edna Aadan Ismaaciil. And I would also like to confirm to the Voice of America and the BBC that Somaliland is not a state. Somaliland is a country. Somaliland is a country which is the oldest country in the Somali inhabited Horn of Africa. It's older than Somalia. It's older than many other countries. It's the 12th country to be independent in the Horn of Africa. It is not a state. It has internationally defined territories. And when I hear the Voice of America and the BBC describing Somaliland as a state, I hope they feel ashamed, because the British should know that British Somaliland was once part of the British Empire, and the United States should know that Somaliland has internationally defined boundaries and was also once the country that was the first independent nation in the Horn of Africa. It is not a state. It is not a region. It is not a district. It is not a zone. It's the Republic of Somaliland. Thank you very much.